Jack markii ugu horeysay wuxuu isku dayay inuu timihiisa ku xiro neerfayaasha xayawaanka faraska weyn. Isla markiiba xayawaanku wuxuu si maskaxiyan ah ula xiriiray, si fududna wuxuu ugu hoos yimid amarkiisa. Jack aad buu ula yaabay tijaabadan, laakiin wuxuu go'aansaday inuu markan dabciyo bahal weyn oo qadiimi ah. Markii uu u dhawaaday, wuxuu ogaaday in makhluuqyadan bahalnimada ah ay yihiin kuwa aad u caqli badan. Qaar ka mid ah markii ay arkeen waxay ku boodeen doox dheer oo ay meel fog isku qariyeen, hase yeeshee indhihiisu waxay qabteen mid gaar ah oo ka mid ahaa bahaladaas. Wuxuu isku dayay inuu Jack ku cabsi geliyo cidiisii naxdinta lahayd. Jack wuu sii xamaasadeeyay, isla markii uu bahalku soo weeraray, wuxuu si degdeg ah xarig ugu xiray afkiisa, dushana wuu ka booday. Bahalkii wuxuu bilaabay inuu si xoog leh u mergado, laakiin Jack si adag ayuu qoorta uga qabtay. Wuxuu ogaa in haddii uu hadda isdhiibo uusan mar dambe awoodi doonin inuu bahal kale dabciyo. Dhanka kale saaxiibadiis waxay bilaabeen inay u sheegaan sida loo sameeyo isku xirka. Jack ma uusan ogeyn sida ay u cabsi badan tahay awoodda bahalku. Hal dharbaaxo waa laga tuuray, saaxiibadiisna way wada argagaxeen, laakiin Jack ma quusan. Wuu is adkeeyey oo mar kale ayuu weeraray. Markan si toos ah ayuu u qabtay bahalkii, dhulka ayuu ku dhuftay, madaxiisana lugihiisa ayuu ku qabtay. Isla markii uu fursad helay, wuxuu isku xiray neerfayaashooda. Halgan dheer kadib, bahalkii wuxuu aakhirkii si buuxda ugu hoos yimid amarkiisa. Isla markii uu xariggii ka furay, Jack wuxuu fuulay dushiisa. Gabadhii ag taagnayd waxay ku tiri hadda waa inuu la duulo. Haddii uu ku guuldaraysto inuu duulo, xiriirka ayaa isla markiiba goy doona. Jack wuxuu isku geeyey geesinimadiisii ugu dambaysay, bahalkiina wuu kacay oo duulay. Hadda wuxuu si dhab ah u noqday sayidka bahalkaas. Si qarsoodi ah ayuu khamrigii ugu shubay qashin qubka, wuxuuna iska dhigay nin sakhraansan. Dabadeed wuxuu aaday musqusha, wuxuuna fariin u diray gabar ay wada shaqeeyaan, isagoo ku casuumay inay kaararka la ciyaarto. Wuxuu u sheegay in caawa dhacdo weyn ay jiri doonto, taasoo gebi ahaanba bedeli doonta aayihiisa. Habeen aan sidaa u fogeyn oo tan la mid ah ayuu si kama ah u sakhraamay, wuxuuna ku gamay fadhiga. Markii uu soo toosay, wuxuu maqlay sodogiis oo bannaanka ku canaananaya. Isla markii uu u baxay si uu u eego waxa dhacaya, sodogiis wuxuu soo qaatay ul, wuxuuna damcay inuu ku dhufto. Nasiib wanaag waxaa ka celiyey saaxiibkiis. Sodogiis ayaa soo jiiday oo weydiiyey meesha ay gabadhiisu joogto. Isagoo yaaban ayuu weydiiyey waxa dhacay, maadaama uusan waxba ogeyn. Laakiin sodogiis wuxuu weydiiyey sababta uu gabadhiisa u dhibaateeyey. Aad ayuu u wareeray markii uu taas maqlay. Isla markaas sodogiis wuxuu soo saaray taleefankiisa. Taleefanka waxaa ku qornayd fariintii ugu dambaysay ee ay xaaskiisu dirtay intii aysan dhiman. Fariintu waxay muujinaysay inuu isagu ahaa gacan ku dhiig laha. Wuxuu dareemay wax lala yaabo, sababtoo ah xaaskiisu waxay si cad ugu seexanaysay qolka. Sidaa darteed si degdeg ah ayuu sodogiis u geeyey qolka. Markii uu bustaha kor u qaaday, waxaa hoostiisa yaalay oo keliya barkin. Wuxuu xusuustay in habeenkii hore markii uu sakhraamay ay xaaskiisu la baxday seedigiis. Laakiin seedigiis wuxuu sheegay in qof walba uu sakhraansanaa, uuna walaashiis qolka geeyey, kadibna uu iska tegey. Wuxuu xusuustay in guriga ay ku rakibnayd kamarad qarsoon. Dhammaan si degdeg ah ayay u aadeen si ay u daawadaan muuqaalka. Laakiin kamaradu waxay muujisay isagoo xaaskiisa gelinaya dabada dambe ee gaariga, iyadoo aan lahayn wax calaamad nololeed ah. Sodogiis wuu xakamayn waayey shucuurtiisa, wuxuuna qaatay go'aan degdeg ah. Dhulka ayuu ku dhacay, wuxuuna si dhab ah u doonayay inuu ogaado runta. Markii uu indhaha kala qaaday, wuxuu dib ugu soo noolaaday habeenkii uu sakhraamayay. Laakiin markan wuxuu ogaaday in qof walba uu u muuqday inuu leeyahay welwel u gaar ah. Sidaa darteed markii ay cabayeen si qarsoodi ah ayuu khamrigiisii u daadiyey. Wuxuu u orday musqusha, wuxuuna wacay asxaabtiisa si uu kaarar ula ciyaaro. Markii uu ciyaarta kaararku bilaabmay, si ula kac ah ayuu sawir u qaaday si uu caddayn uga dhigto. Intii lagu jiray ciyaarta, dad badan ayaa doonayay inay baxaan, laakiin wuu ku qasbay inay ciyaaraan ilaa waaberiga. Wuxuuna sawiro ka qaadayay xilli kasta si uu caddayn uga dhigto. Intaa kadib wuxuu ka faa'iidaystay fursadda, wuxuuna aaday qolka jiifka si uu eego. Wuxuu ogaaday in xaaskiisu ay weli hurdo. Waxoogaa ayuu iska yara degay, wuxuu ku laabtay qolkii fadhiga, wuxuuna la ciyaaray asxaabtiisa mar kale. Wuxuu ciyaaray ilaa ay si buuxda u waaberiisatay, ka hor inta uusan u ogolaan inay baxaan. Aad ayuu u daalanaa, wuxuuna ku seexday miiskii. Muddo yar kadib saaxiibkiis ayaa u keenay quraac, wuuna toosiyey. Wuxuu ka codsaday saaxiibkiis inuu aado qolka jiifka oo uu u yeero xaaskiisa si ay quraacda u wada cunaan. Laakiin markii uu saaxiibkiis aaday qolka jiifka, xaaskiisa lama helin. Si degdeg ah ayuu u orday si uu u eego. Waxba kuma jirin bustaha hoostiisa, laakiin si lama filaan ah ayuu u xusuustay in markii uu shalay ka soo baxay qolka jiifka, uu arkay ina adeerkii oo musqusha aaday. Markii uu ina adeerkii soo baxay, cagihiisa waxaa ka buuxay dhoobo, daaqadda musqushuna way furnayd. Wuxuu garowsaday in masiibadu ay mar kale dhici karto. Markii bahalkii weynaa uu hurdo dheer ku jiray, ayaa nin si aamusan koofiyadii madaxa uga qaaday. Intaa kadib Jack wuxuu gudaha u geliyey buulshinni ah, laakiin bahalkii waxba ma dareemin. Markii ay koofiyadii ku celiyeen, waxay ku dhuunteen dhagax gadaashiis si ay u daawadaan waxa dhici doona. Laakiin bahalkii weli wuu iska hurdayey, iyagoo yaaban ayaa si kedis ah bahalkii indhaha u kala qaaday. Isagoo argagaxsan ayuu madaxa taabtay, kadibna wuxuu ku dhacay god, isagoo dhulka si xoog leh ugu dhacay. Labadoodii way sii eegeen. Markii uu koofiyadii iska siibay, saddexdoodiiba way wada naxeen. Bahalkii oo caraysan ayaa bilaabay inuu shinnidii iska eriyo, laakiin hal shinni ayaa weerartay. Isagoo baqaya ayuu bahalkii ka dhacay meel sare. Markii qorshahoodii shaqeeyey, saddexdoodiiba way farxeen. Boqoradii ayaa Jack farxad la gasbistay, laakiin wejiga generaalkii wuxuu noqday mid culus. Markii ay isku dayeen inay baxaan, generaalkii ayaa joojiyey oo Jack ku yiri inuu soo eego bahalkii, isagoo ilaalinayay khaankii. Way isweydaarsadeen calaamado, bahalkiina wuu sii socday. Wadaadadii oo tukanayay ayaa arkay muuqaalkan yaabka leh oo naxay. Bahalkii ayaa dhulka si xoog leh ugu dhacay. Boqorkii ayaa maqlay sanqarta oo u soo orday si uu arko waxa dhacay. Markuu yimid, wuxuu arkay bahalkii oo dhulka yaala. Dadkii tuulada ayaa isugu soo baxay si ay u arkaan, mana rumaysan karin. Boqorkii wuxuu amray in geedkii dheeraa isla markiiba la gooyo, laakiin askartii ma dhaqaaqin sababtoo ah boqoradii weli kor ayay saarnayd. Ugu dambayn, boqorkii ayaa seeftiisii qaatay oo geedkii ka gooyay
xididka markuu sarkaalkii sare arkay isna wuu raacay amarkii askartii waxay habeen iyo maalin ka shaqeeyeen sidii ay geedka u goyn lahaayeen waxayna ogeyn in boqoradii iyo Jack ay si tartiib ah u soo degayeen dadaal badan kadib geedkii uu go'ay isagoon taageero haysan ayuu bilaabay inuu ruxmo Jack hoos ayuu eegay boqoradii si adag ayuu u qabtay wuxuuna qabsaday geed yar oo dhuuban wuxuu arkay meel caws badan leh oo hoos ah wuuna booday waxay si nabad ah ugu degeen cawskii jilicsanaa wayna badbaadeen markii bahalkii yimid meeshii sare wuxuu arkay in geedkii u socday dunida dadka uu goon yahay wuxuu u qayliyey si caro leh kadib wuxuu arkay boorso yar oo saaxiibkiis gacanta ugu jirtay oo ay ku jireen abuurkii geedka hogaamiyihii ayaa neef dheer qaatay abuurkiina wuxuu ku dhacay dhulka isla markiiba geedo cusub ayaa si degdeg ah u koray ilaa cirka hogaamiyihii ayaa bixiyey calaamadii bahaladiina waxay bilaabeen weerarkoodii waxay koreen geedihii iyagoo u socda dunida dadka daqiiqado yar gudahood way soo galeen ciidankii bahalada ayaa jebiyey irdahii magaalada oo galay qalcadii iyagoo usoo dhaqaaqay dhankii dadka waqtigaas muhiimka ahaa Jack ayaa soo baxay isagoo xiran taajkii sixirka ahaa ee bahalada isla markiiba bahaladii hubkoodii way tuureen oo jilba joogsadeen sidaas ayaa dadkii lagu badbaadiyey ninkan markii uu xirtay okiyaalaha wuxuu helay awood aan caadi ahayn awooddaasi waxay u suurtagelisay inuu arko nasiibka dadka kale laakiin intaas kuma ekayn wuxuu awood u yeeshay inuu nasiibkooda la wareego oo uu kiisa ka dhigto nasiibkii uu ka qaado qof walba isaga ayuu usoo wareegayey si uu awoodan u tijaabiyo wuxuu la wareegay nasiibkii uu eka rootiga ee ka sarreeyey madaxa nin tuugsada ahaa isla markiiba nasiibkiisii wanaagsanaa isaga ayuu usoo wareegay ninkii tuugsadaha ahaana waxaa ku habsaday nasiib xumo baan si lama filaan ah ayuu dhulka ugu dhacay isagoo dhaawacyo halis ahi soo gaareen waqtigaas ayuu ninkii fahmay in nasiibka uu helo uu musiibo ku yahay qofkii laga qaado si uu arrintaas usii xaqiijiyo wuxuu la wareegay nasiibkii haweeney kale oo uu eka caano markiiba isaga ayaa noqday mid nasiib badan haweenaydiina waxaa ka guuray nasiibkeedii waxaana si lama filaan ah u qaniinay eygii yaraa ee ay wadatay laga bilaabo maalintaas nasiibkiisu wuu sii batay wuxuuna noqday qof isla weyn oo aan cidna u turin xitaa markuu arko qof indhool ah si naxariis la'aan ah ayuu ula wareegi jiray nasiibkiisa qof kasta oo dhibo nasiibkiisa ayuu ka qaadan jiray si uu kankiisa ugu biiriyo awoodan iyo nasiibka uu helay awgeed wuxuu go'aansaday inuusan u baahnayn shaqo adag wuxuu ku qayliyey maamulihiisii shaqadiina si kibir ku jiro ayuu isaga casilay laakiin markii uu baska guriga ugu sii socday waxaa si kadis ah u jiiray nin rakaab ah ninkii rakaabka ahaa isma raali gelinin taasina aad ayay ninkii u caraysiisay isagoo aaminsan in nasiibkiisu uu ka ilaalin doono wax walba wuxuu la wareegay nasiibkii dahabka ahaa ee ka dulbabanayay madaxa ninkaas si lama filaan ah wuxuu ogaaday in dhammaan rakaabka baska saaran ay yihiin dadkii uu horay nasiibkooda ula wareegay isagoo isleh nasiibkaaga ayaa ugu badan ayuu iska qoslay laakiin ma uusan ogeyn in musiibo weyn ay soo socoto markii dad intaas leeg oo nasiibkoodii laga qaatay ay hal meel isugu yimaadeen waxay abuurtay tamar nasiib xumo oo aad weyn wuxuu u orday baska hore si uu u baxsado laakiin wuxuu la kulmay naxdin markii uu arkay in darawalku yahay isla ninkii indhoolka ahaa ee uu nasiibkiisa qaatay isla markiiba wuu argagaxay isla markaas gaari xamuul ah ayaa si xawli ah uga soo horjeeday wuuna ku dhacay baska darawalkii miir doorsoomay akhirkii nasiibkii uu ururiyey kama badbaadinin musiibada ka dhalatay falkiisa wuxuu bixiyey qiimo culus damaciisii dartiis nasiibkii uu xadayna wuxuu dib ugu laabtay milkiilayaashoodii xaqa u lahaa qabowga awgiis gabadha gacanteedu waxay si xun ugu dhigtay biibada birta ah markii ay isku dayday inay ka siibto maqaarkii iyo hilibkii gacanteeda ayaa ka go'ay waxaana ka yimid dhiig labadoodaba halkaas ayay ku xayirnaayeen ilaa 12 saacadood gabadha xitaa waxay isku dayday inay kaadiso iyadoo kursiga fadhida heerkulka qabowga badan ee ka hooseeya eber dhaawaca wejigeeda ayaa sii xumaanayay gaajo iyo qabow ayaa si tartiib ah u wiiqay rajadooda waxay ahayd inay si uun hoos u deegaan ama labadooduba halkaas ayay ku dhiman lahaayeen wiilku wuxuu isku dayay inuu hore u socdo isagoo qabsanaya fiilada laakiin xanuunka gacmihiisa ayaa ahaa mid aan loo adkaysan karin isla markaas yey ayaa hoos ka muuqatay si uun ayuu ugu guulaystay inuu gaaro kursiga xiga ee fadhiga inkastoo gacmihiisu ay qabowga darteed u dilaaceen isagoo arkay yeyda hoos joogta wuu argagaxay wuxuu gabadha ku qayliyey inay usha barafka ah hoos ugu soo tuurto si uu isku difaaco gabadha waxay ruxday kursiga si ay usha u tuurto iyadoo aan ogaan in boolalkii kursiga hayay ay dabacsanayeen usha ayay tuurtay isagoo la dagaalamaya xanuunka wiilku wuxuu ugu dambayn gaaray dhismaha birta ah oo uu bilaabay inuu si tartiib ah usoo dego si kedis ah ayeydii ayaa weerartay gabadha ayaa qaylisay waqti ku habboon wiilku wuxuu qabsaday ushii barafka ah oo uu yeydii ku horjoogay markii ay oroday wuxuu si degdeg ah u fuulay barafsaarka oo uu buurta hoos ugu sibxaday yeydii waxay bilowday inay haddana cayrsato gabadhii argagaxsanayd waxay ogaatay inay tahay inay hoos u degto oo ay caawimo hesho inta aysan daahin goordhow habeen ayaa la galay dhulkii barafka ahaa nasiib wanaag habeenkaas ma jirin duufaan baraf ah gabadhu way badbaaday laakiin markii ay aragtay in saaxiibkeed aanu soo laaban waxay go'aansatay inay ka boodo meeshaas dhererkeeda ahayd kursigu wuu ruxmayey boolalkii dabacsanaa ayaa go'ay kursiga liftiga wuu dhacay laakiin dhinac keliya ayaa ku dhegay fiilada waqti lumis la'aan gabadhu waxay go'aansatay inay boodo inta aysan fiiladu goyn iyadoo gariiraysa ayay iska daysay oo ku guulaysatay inay si nabad ah usoo degto laakiin kursigii liftiga ayaa kusoo dhacay lugteeda oo jebiyey ma socon karin haddana waxay sii waday gurguurashada iyadoo ka go'an inay noolaato in muddo ah kadib waxay aragtay raad diig ah markii ay raacday waxay ogaatay in yeydu ay cuneen saaxiibkeed haddana ay iyada daba joogaan gabadhan curyaanka ahayd oo lugayn karin waxay had iyo jeer ku qasbanaatay inay fadhido kursigeeda curyaanka waxay ahayd taageero weyn oo u ahayd fanaan caan ah oo heesihiisu ay sabab u noqdeen inay nolosha ku sii jirto qolkeeda oo dhan waxay ku xardhay boodhadh iyo waxyaabo isaga la xidhiidha maanta gabadha aad bay u faraxsanayd sababtoo ah waxay daawanaysay riwaayadii fanaanka ay jeceshay oo si toos ah u socota markay goobta riwaayadda timi jawiga farxadeed ayaa xitaa si aad ah u qanciyey xitaa waxay sawiro la gashay boodhadhka fanaankeeda dabadeed waxaa soo gaaray wicitaan telefoon dhowr maalmood ka hor waxay shaqo ka codsatay shirkad maantana shirkadaas ayaa u soo wacday waraysi shaqo degdeg ayay u ogolaatay sababtoo ah waxaa weli ka hadsanaa 2 saacadood ka hor inta aysan riwaayadda bilaaban maadaama ay shirkadu meel u dhoweyd waxay ku fikirtay inay si degdeg ah waraysiga u qabato oo ay waqti ku soo laabato si ay bandhiga ugu raaxaysato laakiin markii ay shirkadda timid waxay ogaatay in aysan jirin wiish elevator xuryaannimadeeda awgeed ma aysan kori karin jaranjarada sidaas darteed waxay weyday fursadii waraysiga daalan oo niyad jabsan waxay ku soo laabtay goobtii riwaayadda laakiin markaas bandhigu uu bilaabmay ilaaliyaha ayaa albaabka ka celiyey isagoo weydiinaya tigidhkeeda markaas ayay xasuusatay tigidhkeedii wuxuu ka dhacay baskii gabadhii oo aan waxba qabsan karin ayaa bannaanka garoonka taagnayd iyadoo ku raaxaysanaysa riwaayadda halkaas gudaha fanaankeeda ayaa
heesayay dibaddana iyada ayaa si dheer ula heesaysay iyadoo si kalgacal leh u taageeraysa. riwaayadda kadib qof ayaa si kama ah u riixay telefoonkeediina wuu dhacay oo wuu jabay. gurigii oo ay ku sii jeedo kursigeeda curyaanku sidoo kale wuu xumaaday. markii hore waxay weyday fursaddii shaqo, dabadeed tigidhkeedii, telefoonkeedii jabay, haddana kursigeedii curyaanka ayaa istaagay. waxaa intaas dheer hawada qabow ayaa ka dhigtay mid xanuunsan. waxaas oo dhan ayaa gabadha niyad jab ku keenay. si lama filaan ah gaari ayaa agteeda yimid. nin dhalinyaro ah ayaa ka soo degay. markii ay gabadhu eegtay way yaabtay. wuxuu ahaa qofkii ay waxaas oo dhan u dulqaadatay fanaankeeda. markuu arkay iyada oo qabow la gariiraysa wuxuu dalladiisa umbrella ku daboolay oo gacmaha saaray maro gacmeed. gabadhu way naxday laakiin geesinimo ayay iska soo ururisay. waxayna ku tidhi runtii ma rumaysan doonti, laakiin waxaan ahay taageerahaaga ugu weyn adduunka. isaga oo dhoola caddaynaya ayuu ku jawaabay waan ogaa isla markii aan arkay adigoo xiran xirnaha madaxa ee magacayga ku qoran. dabadeed wuxuu weydiiyey miyaan guriga ku geeyaa. gabadhu si farxad leh ayay haar u tidhi, laakiin isla markii ay haa tidhi saaxiibkeed ayaa gaari kula yimid si ay u qaado. iyadoo aan rabin ayay la raacday saaxiibkeed. waxay si taxadar leh u xajisatay hadiyadii uu siiyey, waxayna xidhatay saacaddii ay hooyadeed siisay. isla markaas fariin ayaa ka soo muuqatay telefoonkeedii jabay. isla markii ay akhriday adduunkii ayaa ku dumay. wararka ayaa sheegaya in fanaankii caanka ahaa uu habeenkaas biyo ku dhacay oo uu geeriyooday. iyada oo aan labalabayn waxay u degdegtay isbitaalka. jidka waxay si kama ah qof u jiiday, saacaddii ay hooyadeed siisayna biyaha ayay ku dhacday. markii ay soo qaaday ayay si kama ah badhan u riixday. si lama filaan ah iftiin dhalaalaya ayaa ka soo baxay saacaddii biyaha, wakhtiguna wuu istaagay. markii ay indhaheeda kala qaaday waxay isku aragtay 5 sano ka hor maalmihii dugsiga, markana way istaagi kartaa lugaheeda. waxay markiiba orod ugu ambabaxday inay hesho wiilkii. waxay heshay isagii, waxayna si adag u isku duubtay. waxay u qiratay jacaylkeeda, laakiin isagu ma fahmin waxa dhacaya. ilaalada ayaa dibadda u soo jiiday. niyad jab ayaa kalifay inay banaanka iska fadhido oo ay oydo. isla markaas wiilkii ayaa soo baxay oo wuxuu arkay inay xidhan tahay saacad u egtiisa. isaga oo aan waxba odhan wuu iska tegey. maalintii ku xigtay waxay mar kale aragtay jacaylkeeda oo jooga dugsigii. si lama filaan ah roob ayaa daay. isla markaas wiilkii ayaa mar kale u soo lugeeyey. wuxuu arkay iyada oo qoybaysa, wuxuuna ku daboolay dalladiisa. marka maxay kula tahay? ma istaajin doonaan jacaylka dhabta ah markan? ha ilaawin inaad ra'yigaaga ku reebto faallooyinka.